أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة الإسلام كمركي لو ديبي ومركو النبي قد دويدا كإنتقال صلى الله عليه وسلم وحوها بغاش لها بركة يبدا عدو السوق كو يبين جرال ليدي ألابتي يسيبو قاتو دكتو صارتي عمر بارك نيكو سيسعودها قال يا أبا بكر إلى أين وحولي واشقتك يا وطلدي أمد دودن بعدك مدح لغا ساري مدح ليلي وريركيغا يا إي بيلين سو أنو كمسؤول مايو إلهي ويدين مايو مسلمين تودن باللوغا ديغا مسؤول مدح خليفة رسول الله وإيان مسؤولية دا أو قبتينا لعقبات كو قادن ماشا مسؤول ديغا نسو إنك ما أنت كورم إنك مركو مسؤول لغا ديغا دولة دا أما حل ديبان لو دورنا محمود سعودة بيكولتها محمود سعودة العقفي عن هيشد meelaha ana si fiican ha u jabsatid law xildhibaankii baa la oranaya oo loo baneen meel walba iyagu sida ma ahayn mas'uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas'uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nabiga loo khidmeynayay waa adeeg ummadeed ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo Abu Bakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygina ma haleeleysid هم مصاريفتودي أنا كمسؤول أنا كشورين إني أظن قهرت هالك فريسو ما هليلس هديته له والله شوريي وحلو شوريي ما دام أفر ريرو لها إن بيت المال كان لقصية مصاريف ريركي سكوفلان نف جحي إنه أكل غيبية مالي والبريركي سهيل بكاس يراشين كوفلان لا بدي سنة وثلاثة ومدها يدور كي بلاد تيسي مركي تمدي قلت كان لقول أبي بكر الصديق الله الرالي كان نقضي إنا كيسي عبد الرحمن بن أبي بكر أولا عقد سدا أيا بيت المال كي يمدي عبد الرحمن بن عوف أوها مالية نكي هاي أيوري العقد بيت المال كوعلي مركز سودادر العقد حقت كوا دا جوتشي وعد آباء الله ونحارستي أيا يقول الدردار مو يري هذا تيدي نقطة مانتا واحد دويا مانتا أنا قلت دول بان كلها مقالة مدينة دول كايبية lacagta ka soo baxda dhulka labadii saniye dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytal maalka lacag inta leeg baan ka qaadano masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yiri inta inii soo hadhanayna ku dhaxal u qaybtama buu yiri Abdurrahman bin Auf yaabay war maxaa leedahay aaba ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiyo halkee baytal maalka oo sidoo qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen oo reer kastiinay labadii sanadood ayuu aabahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxa uu nagula dardaarmay lacagta in halkayga lagaga celiyo baytal maalka lagu celiyo Umar ibn Khattab baa loo keenay Umar uu ooyay Abu Bakr as-Siddiq oo uu Abu Bakr oo qabriga Abu Bakr buu dul tagay Umar wuxuu yiri madaxda adiga dabada imanaysa wallahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu keed wadna daalisay buu keedi sidaan u leenahay Abu Bakr ugu dayda waadna daalisay buuri labadii saniye dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa aniga idiga celiyay baytal maalka intaas xukaamta zamankeena ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhirada ku xisaabtamayeen markaas koogii madaxa ahaa حق إلهينا وإلهي حقوق دي بني آدم كان أساسه اسكا إلهي كوغي فقير كاها حق إلهينا اسنو اسكا إلهي حق داد كان اسكا إلهي وكوغي فقير كاها سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام با كسو أشكتوتي محايك كسو أشكتوتي دول آن لها ayuu beertiisii ku darsaday tiri waliba ceelkaana aniga leh iyadu hadama la ogow isaga iska leh waa been abuurasho Uthman bin Affan amirka muuminiinta u yeeray Saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamida Saciid ibn Zayd Abu al-A'war markaasuu leey waa laga soo dacwooday Saciidow oo iyaga soo dacwooday سلانتا با كاسو دعوته دوقدا او maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iyala leeyahay oo macal ceelka iyada leh
markaasuu yaa amiira almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa 7 dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indha beeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday bale ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadan ku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la ego dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata 7 dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaano inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaase waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna hanu soo noqonno ha toobadkeenno in yar baan adduunyada joogaynaa in yar wamaa tadri nafsun maada taksibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut berri toole nin walba waxa uu la kulmi doono kama warqabo meesha qabrigaagu noqon uu qabrigaygu noqon kama warqabno marka walaal waa inaan aakhiro ku xisaabtanna aakhiro ma dheero innahum yarawnahu baciidan wanaraahu ilaahay baa sheegay qiyaamuhu ma dheero xaggeenna waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrintu waa dhowdahay bacithu ana wasaacatu ka haatayni labadaa farood buu nebigu isku dherariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxadaa buu nebigu isku qabtay markaa buu nebigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa farood ay iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqonno han ka baqna ilaahay